iyadoo ay ahmiyad weyn u leedahay waxbarashadu carruurta ayaa waxaa magaalada Boorama maanta laga daafuray dugsi cusub oo noociisu ku cusub yahay guud ahaanba dhulka ay Soomaalidu degto kaasi oo la magac baxay Himilo School kaasi oo loogu talagalay in wax lagu baro carruurta yaryar gelinka hore dugsigani ayaa waxa lagu baran doonaa barbaarinta carruurta iyo sidii carruurtu ay ula jaan qaadi lahaayeen carruurta kale ee ku nool dhammaanba caalamka intiisa kale Mukhtaar Cumar Maxamuud oo ah maamulaha hindisaha iskuulkan Himilo ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada loo furay dugsigani qaarka meesha timid oo ku mahadsantihiin ka soo qaybgalka xafladan furitaan insha Allah iskuul cusub la yiraahdo Himilo sida magaca ka garanaysaan Himilo kelmadda Soomaaliga waxay u taagan tahay kulli af Ingiriiska waxa uu aspiration marka iskuulkan waxa magaca ugu bixinay waxaan rajo ka qabnaa insha Allah culture cusub inuu kusoo kordhiyo qaabka iskuulaadka uu wada jirin hore iskuulkan waa horta waa kindergarten waana primary hadda waxaan bilaabaynaa kindergartenkii primaryga semesterka dambe haddii la yiraahdo waa KG1 iyo KG2 waxaan ka hadlaynaa markaan leeyahay kindergarten haddii la carruurta yartahay 4 jirka ilaa 6 jirka meelahaas waxaan qaadanaynaa iska 20 arday sababtuna waxay tahay marka hore waxaan doonaynaa maadaama aan rabnaa inaan test garayno bal qaab cusub qurbahan ku soo arkay iskuulaadka xagga loo maamulo bal dadkan inaan fiirino qaabka arinta uga shaqeyn kartay in kale tusaale naga tahay insha Allah 20 kan ku guuleysan rajaynaynaa marka taa aan ayaga u dhigno kadib insha Allah wax kale capacity ku kordhin doonaa hadii la yiraahdo intaasi kadib iyaguna waxa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid ah marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb galay furitaankii dugsigani Mukhtaar Cumar Maxamuud anoo saaxiibo khaas ah nahay hamigu hadda kuma jirin markuu Mareykanka la soo hadlay ayay ku jirtay Minnesota la soo hadlay oo waxa weeyaan Addis Ababa degan يعني فكر كان يفكر كبلارن بينو دلكي intuu yimaado si mutadabacnimo leh umadii dib wax uga shado macadka Himilo hadda yagleelkeeda leeyahay isagu maamulkii madaxana uu ka yahay subaxdiina inoo ah xadaanad ubadka lagu barbaarinayo casarkiina inoo ah dadka waxa weey private private school waxa weey skillska capacity building programs oo dhan lagu qabanayo runtii aad baan soo dhaweynaynaa ka bulsho ahaan xafladan maanta aan ku furayno walaalkeen Mukhtaar iskuulka waxa weeyaan carruurta yaryar ee ma taqaanaa waxa weeyaan nidaamkii wax loo dhigi jiray dalka nidaam ka yara duwan waxa weey horta aad baan u soo dhaweynaynaa maxaa yeelay wax la tabcaa waxa ugu horeeya ubadka waan soo dhaweynaynaa ma sha Allah horta waa guul inaga iyo ummadda muslimkaba qof walaalkeena oo hindiisiisu dheer yahay sidoo kalena maamulka dugsigaasi Himilo waxa uu sheegay inuu qaadan doono galaaskiiba 20 arday oo kaliya isdiiwaangelintuna waxay ka socotaa isla xarunta dugsigaasi meel la xasuusto waxa ugu qiimo badan ubaxa soo kacay saaxiibka waxa xasuustay ubaxna wax ka qiimo badan ma jiro anoo ugu horeynaya iskoolka maanta oo keenaya carruurtayda grade-ku sameeyay laban keenaya aniguna handalay hadii la yiraahdo oo ugu soo horeysiinaya ani waxa ay la tahay in aan u soo horeyno oo 20 ka qof aan noqono maaragtaan horta aanu qofka horeeya noqon doona insha Allah bal ilaahay duraado qof walba wuxuu subaxii kala hayaa oo habeenkii u soo heenaya waa ubadkiisa waxay cun laayeen waxay abilaayeen tarbiyadooda iyo waxbarashadooda intaas maadaama ay tahay juhdigeenuba tanootiina khuseys haddaba bulshada moogaanina inaad hore u gaadhaan dugsiga Himilo ood ka heli doonto waxbarasho tayo leh waxaanay maamulka iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee dugsigaasi kulan isbarashaha u qaban doonaan waalidiinta kala duwan ee dugsigaasi waxaana kulankaasi la qabanayaa 1 bisha Oktoobar oo ku beegan maalinta Jimcaha salaada casar kadib waxaana isla maalinta xigta si toos ah loo bilaabi doonaa waxbarashadii dugsigaasi haddaba aan ku tilmaamay dugsiga Himilo waxa uu ku yaalaa ka soo horjeedka Hotel Boorama ee magaalada Boorama